السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركلي الصنع شو نحسن عن رؤوسي قال إن هذه العلاجة قيبتها من objectives. قيبتها مركا مكان كان حقصو كوبي دونا سيدا مركاسي تواصل من general objective كا specific objectives كا يوحلوني كانوا research questions أما hypothesis بدك كل مركا هذا استعماليس هذا بقى ومحاي research objective. research objective كله ليه الله استعماله إنه بريف جريه وحلو يقانه وحال research كو ما research كو ودونيو إنه مركزي achieve جريه. أوكي سيدو كله research objective كو حواجبه إنه يهاي achievable. أوكي كلي achievable ما هو إنه smart هذا. أوكي أنت كده هالك وحن كنت المامين واحد يرادو supporting statements يلا استعماله إنه statement تيجا كاغا ديغان حلو يقانو objective هذا كستو قرن هذا هور بكتو سدا مو كون نقونيا هدف aad leedahay kolba ha noqdo mid marka aan aduuro shuruudii waafaqan laakiin hadaf ayuu noqonayaa waxa kamid ah ereyadaas qaybaha halka kaaga muuqdo iyo qaar kale oo badan hadii la yiraahdo okay halka markay joogto marka waxaan rabaa inaan ka hadlo inaan u laabto hal mar waadkeena deetana aan gudaha u galo waxa la yiraahdo general objective of the study. Okay, structure ka daan marayo qaabab kala badan oo ka duwan ayaa jira. For example, qofka ama maaragtay researchers qaar waxa laga yaabaa in objective specific yiraahdaa kadib 1.3.1 general objective 1.3.2 specific objective laakiin anigu hadda waan kala soocay oo mid walba waxaan ka dhigay section gooniye oo markaa hidinkiisu gooniye oo wada siman. Okay? والله سيبن توبيجيدا كلمة سو مركا general objective مركا سمينا يسوم حابو باهنتا easy وحابو باهنتا كلية واحد ينادو توبيجاجا إيو توبيجاجا أوي أوكي هو سوية لي لكن سوري هذا هو إذكر ما يدا يسكتر سافلا أي أو 10 كي هوري هو بيسو لتاس توبيجاجا واقع أوكي إسلا سيدا وعشوما the role of motivation on employee performance at سلام بات مدرسة سومالي أوكي سو marka sida aan hore u sheegnay waxa jira ereyaashan caawiyaasha leeyahay soo marka soo qabo mid kamid ah ereyada ayaa soo qaadanaya for example halkan la imaanaya waxaan leeyahay si general objective uu noqdo waxa uu noqonayaa to find out okay to find out the role of motivation on employee performance at Salam Bank Muqdisho Soomaaliya full stop kadibna halka ku jooji topic-gaaga unbaa maxay uu noqonayaa waxa loo yaqaano general objective kaaga kaliya statement-igi u bedelaysay marka ama ka caawinaysay inuu noqdo objective ama hadaf ayaa hor dhigaysa title-kaaga sidaas ayuu wuxuu ku yahay hadafkaagii guud okay waxaan u galayaa markana wax la yiraahdo specific objectives iyo sida loo sameeyo okay haddaba specific objective markii la sameynayo sidii kan oo kale waxa u baahanaa still wax la yiraahdo supporting statements kan ama action words wax loo yaqaano okay iyo marka inta hadda loo muuqatay wixii ka badan marka la midka research objectives ka asaga marka wuxuu qaas leeyahay formats ayuu leeyahay aad u fara badan laakiin saddex xabo ayaa for example waxaan doonayaa inaan qaybta ku qaadano sidoo kale mid kamid ah haddii rabweyne idmo aan ka sii qaato insha Allah taala okay kan koobaad waxa la yiraahdaa general format kan labaad iyo kan saddexaadna waxa la isku yiraahdaa waxa la kala yiraahdaa minute 1 iyo 1 to minute waxay kaliya marka labada damba hal masharaxaad ku hormarinaya kan koobaad waxa weeyaan in aad samayso minute 1 oo IFV maadaama aad lahayd IFV-gaaga minute ka dhigto oo aad badiso halka DV-gaaga uu ahaanayo 1 kan labaadna waa bilcagsigiisu waxa weeyaan in aad objectives-kaaga sorry IFV-gaaga inaad halkiisii ku dhaafto halka DV-gaaga aad ka dhigayso mini waxa ku soo haray general format waa hab ugu fudud waxaana weeyaan in aad samayso qaababka kale ee marka adigu sidaa doonto aad hadafkaaga ka dhiganayso adoo marna midna jijibinaynin marka labada dambe waxa laga yaabaa badanaa in dhanka iyo correlation la aadayaan okay oo correlation bis ay khaas u yihiin maadaama variable mid kale jiyo kolba laba dhigayo dhanka kale halka mar walba uu ku soo noqonayo soo marka in kuwa la tartansiina mid walba xiriirka uu leeyahay EV-ga kale ama IV-ga la baarayo ay muujinaysaa okay haddaba general format markii la joogo marka waxa weeyaan for example qaab badan loo sameeyaa
laakiin qaabka ugu fudud oo aan u isticmaali karo ayaa waxay tahay in aan baaro IV-ga xaalkiisa si gooniya marna aan DV-ga si gooniya xaalkiisa u baaro marna aan markaasaytii oo markaa meesha ka baarayay ku tasdigarayo marka saddexaadna aan labadooda aan isbarbar dhigo maadaama mid walba xaalkiisu siduu yahay ogaaday okay isku dabna aan wareysanayo good so marka documentiga ku noqonaya waxaan isticmaali doonaa ama sameyn doonaa objectiveska specific ah waliba aan general format isticmaalayo su'aalaheena saddex su'aal aan ka dhigi doonaa hadii la weyneeyo okay kuwa kalena marka example aan dib ka bixi doonaa laakiin marka hore inta uu baa sameynaya halkan ikeen waxaan leeyahay number 1 always waxa loo yaqaano specific objectiveska iyo research core noo soo socdo questions intaba waa inay number yeeshaan oo ay noqdaan wax number ku markaa testigaraysan ama ku listigaraysan waxaan leeyahay marka for example waxaan ka bilaabayaa okay waa caawiyihii ama action wordkii waxaan leeyahay marka the nature oo kale ka soo qabo sida uu yahay xaalkiisu the nature of motivation at Salam Bank Mogadishu Somalia okay promotion ay bixiyaan qaabkay u bixiyaan noocyada kala duwan ay bixiyaan xaalkiisu guud baa halka ku baaraya marka general format aan isticmaalayo IV-na ma jibinayo EV-na ma jibinayo so marka balantu maxay ahayd marka inaan marka koobaad aan IV-ga si gooni u baaro sidoo kale maxaan leeyahay marka haddana kama soo qabo waxaan leeyahay action wordka soo qaadanaya waxaan leeyahay marka the level kama soo qabo of employee performance at Salam Bank Mogadishu Somalia ayadana xaalkeeda wareysan doona ama baari doona so marka motivation goor u baaray employee performance goor u baaray marka maxaan leeyahay sidoo kale kama soo qabato explore oo kale inkastoo aad xoogaa objectives ay actually aysan ku habboonin qaarkood haddana to explore ida waxaan leeyahay the relationship between motivation and employee performance at Salam Bank Mogadishu Somalia okay so marka meeshaasna maxaa ku dhamaaday specific objectives-kii anoo isticmaalayo habkii la oranayay general format haddii la aan isticmaali lahaa labada format maxaa dhici lahaa for example hoos oo imanaya oo ku sharaxana waa isaga tagaya haddaan la sameyn lahaa wax loo yaqaano specific objectiveska oo markaas aan isticmaalayo habka loo yaqaano number 1 aan isticmaalayo habka la yiraahdo minute 1 waxaan sameynayaa for example waxaan soo qaadanayaa general objective-kiga okay halkaan aan dhigayaa deetana okay maxay to find out the role of motivation motivation maxaa laga rabaa marka inaan jajabiyo u fiirsayaa so marka motivation kan ayaa waxaan ku sameyn doonaa inaan marba u bedeli doono variable asaga mateli karo si marka ay saddexdooda ay sidaa ugu noqdaan okay waxaan filayaa warkaasi inuu clear yahay aan isu geysto marka intaan deetana aan isku dayo okay warkaan colorkan tirada badan ma rabo iga saar kaliya erayga motivation oo ah rabo inaan gediyo bedelo baa markaa u isticmaalaya so marka balantu maxay ahayd marka inaan mini sameynayo oo IV-ga aan badinayo maxaan sameynaa marka halkaan imanaya motivation saddexdii variable aan joogo kii weynana waa ii joogaan asagoo sidaan uu ii joogaan macnaha kaa kor u yaala iska daa laakiin specific mar waxaan ka dhigaa kama soo qabo promotion oo kale in xaalkiisa baaro iyo xiriirka uu la leeyahay employee performance-ga marna kama soo qabo inaan iraahdo rewards oo kale kama soo qabo waa variable kale oo markaa mateli karo motivation-ka xiriirna la yeelan karo ama la baari karo sidoo markaa saameyn ugu leeyahay employee performance-ga sidoo kale maxaan sameynayaa kana waxaan ka dhigayaa kama soo qabo training oo kale ama markaa bonus whatever you said mid kale ayaa markaa isagana ku bedelaysaa so marka variable-kan saddexaadna maxaan baarayaa isna xiriirka uu leeyahay employee performance-ga marka sida arkaysan dhinacan employee performance-ga wuu joogayaa isma bedelayo okay wuu joogayaa isma bedelayo laakiin promotion-kii I mean motivation-kii marna wuxuu noqday promotion
marna wuxuu noqday reward marna training soo marka halkii motivation iyo employee performance la barbar dhigay okay waa sameynayna still laakiin bedelkiisa saddex ayaa waxaan la imaanaynaa marka mateli karto oo marka qaas noo ah okay oo study-ga qaas u noqon doonto saddexda variable marka study-ga ay focus gareyn doontaa haddii rabooyin idmo okay maxaa ku xigo lacalla haddii aan kana sameynaa iraadana maxaa dhacaya waxaa dhacaysa for example in motivationku uusan isbedelin oo halkiisa joogo employee performance aan ku bedelo maxay variable adiga markaan mateli karo soo marka topic-gaaga adiga kolba midkaad qaadan lahayd adiga leewi waxaan markaa kugu saameynayo qaabka aad rabto hadhowti ama ay saameyn ku leedahay objective-kan inaad daadada u analyse garayso marka waxaa laga yaabaa hadda levelkan markaa barayso oo aad rujeed tahay inaad ku yara markaa confuse garowdo kolba adigu mid iska qaada hadda okay oo weliba waxaa isku daydaa midka aan qaadanayay ah general formatka inaad halkan la qaadato si marka ay kugu fududaato inaad qaybta dambe natiijada soo saarayo aad isku weymarno sababtoo ah markii aad minute 1 qaadato qaabkaad wax u test garaynayso oo result ku soo saarayso iyo qaabka marka general format aan maro aan u soo saarayo laba kala tahay okay hawshu waa isla hawshii laakiin xogaa waxyaabo badan lagu kala duwanaanaya marka intaan ka dhawaaji karno waa ka dhawaaji doonaa insha Allah ta'ala qofkii formaadada qaato intaan ka gaarin waa isaga sii socon doonaa hadii la yiraahdo okay qaybaha iga masax marka maadaama dantan la ka gaaray iska example ay ahayd fakir okay ani objectives-kaygu waa kuwa waa saddex ahado su'aashii xigta ama shaqada xigta laga rabaa maxay tahay waxa weeyaan research questions-ka kaliya waxaa laga rabaa inaad objectives-kaaga su'aal u bedesho adoo markaa iska ilaalinayo su'aalaha u baahan karo jawaab ahaan yes or no answers okay jawaabaha yes or no hadday yeelan karaan lama ogolo laakiin maxaa samaynaysaa let me go okay halkaan imanaya waxaan sameynaa objectives-kayga ku bidhaanaya maadaama sidaas lay soo dhahay halkaan imanaya research questions-ka control v halkaan ku dheh marka halkaan dhigo maxaa laga rabaa marka laga rabaa halkaan reaction aha marka objective-ka waan iska saaraya waxaan ku bedelayaa kama soo qabo what is that ayaan leeyahay what's the nature of motivation here salaam bank muqdisho Soomaaliya okay علامة سؤال صعب كنا محله for example how is the level or what's the level still what is the level of employee performance هي أتسنى باقي مقدشة Soomaaliya sidoo kale ka saar eraygan caawiyaha ah waxaa ka dhigaysaa how is the relationship between motivation and employee performance inkastoo mararka qaar eraydan aan u isticmaalaysa su-aasha ah ay kugu samayn doonto wax la yiraahdo in ay maxaa la dhahaa ay saameyn ku yeelato waxa la yiraahdo study result-ga laakiin hadda anaga erayadaas WH questions-ka isticmaalaynaa qaybaha kale arrimaha kale hadda ku dheeraanayno horu uga soo socdo meesha waxay ugu dhamaaday marka wax la yiraahdo research questions-ki okay so marka waxaan filayaa inay clear tahay sida loo sameeyo objective-ka generally iyo specific general waxaan kugu yiraahday waxa u baahan tahay kaliya topic-kaaga inaad hormariso eray caawiya ah halkaan waxaan kugu dhahay erayada caawiyaasha loo isticmaalayo general format استعمال أما 1 to many and many to 1 أنا وحنا كاستعمال general format أو قاب كان كسي استعمال أي طريقة قاب بدنا يلا كتا أوكي وحنا كسي استعمال قاب كان مركز سيتي إن أي في جنبوري وبارا يمر مرنا دي في سيجوريا مرنا عم يصلا بارا ولا بدوله عفلا يا أنت سنة كلير تايم research questions كان كلير كل بعضه أواجه جبي مركز استعمال مركز في general format مثل كذا دون تمر صدق على format كاستعمال شبه research question أيضا بربلاي مرها كلي waxaan sameynaysaa wax loo yaqaano in objective-kii qaabka doonto sameeyo soo qaadato su'aal lagu bedesho adoo iska ilaalinayo su'aalaha yes or no answers-keeda ay tahay halaga yes or no maxaa loo jeedinaysaa sidaan oo kale dawada ka tira maxaa dhaca isdaya kama soo qabo ama kama soo qabo for example tan oo kale may halkan imo inta kale hawada ka tira ina koran isdaya relationship between motivation and employee performance jawaab maxay noqonaysaa yes marka taada la diiday ama no okay waxaa jira mararka qaar marka oo hadda aan ka hadlaynin waxa la yiraahdo hypothesis marka badana waxa loo isticmaalaa research questions-ka uu shaqo qabanayo buu qabtaa oo marka waxa loogu talagalay in lagu soo bandhigo ama lagu qoro waxa study-ga ay test garaynayso sida haddaba ay research question-ku ay igu sameynayso mataqaana study test-geega igu sii sheegayso because wani maxaan test garaynayaa waxaan baarayaa marna oo su'aashu ka taagan tahay motivation iyo xaalkiisu soo galaya salaan bangi marna employee performance iyo level-keeda iyo heerkeeda halka uu marayo shaqaalaha salaan bangi performance-gooda marna relationship-ka labada variable ee marka xaaladaha kala motivation-ka iyo employee performance-ga inaan baarayo marka hadhow mid walba maxaa laga rabaa inaan jawaab ka bixiyo nature of motivation salaan bangi soo ka yahay
inuu motivation ka jiro intaasa boqolkiiba waxay mareen kama soo qabo waxaan loo isticmaali doonaa scales 1 to 5 oo kale for example so marka 4 oo kale waxa laga yaabaa inay soo baxdo ama 5 kaba ay soo baxdo macnaheedu salaam banki in motivation bixiso ama motivation ka jiro ay dadkii badankood isku raaceen maadaama anagu waa shaqaale wareysan doono employee performance-ga sidoo kale relationship-ka waxaan ku tusi garay doonaa correlation haddii la yiraahdo soo marka study-geena haddii la gudmo waxay isku noqon doontaa both descriptive and marka wax loo yaqaan correlation insha Allah ta'ala marka hypothesis-ka booska waxa booskiisa ii joogo research questions-ka haddii ay noqoto marka inaad isticmaalayso hypothesis-ka iyada structure-keeda qaabka loo qoro kan uu ka duwan yahay laakiin hadaf ahaan danta loo isticmaalo ayaa hadda waxaan noo matalayo research questions-ka labadoodana selective isku yihiin waxaa loogu talagalay qofku inuu isticmaalo research questions si uu u sheego inuu testi garaynayo ama inuu isticmaalo hypothesis si uu u sheego waxa uu testi garaynayo oo hadhow result ahaan uu soo saari doono marka labadood in asla isticmaashay macnaheedu waa maxay in hal hadaf laba mar sheegaysa la mid tahay looma baahna marka haddii la yiraahdo waxaan rajaynayaa intaasi inay clear tahay haddii la yiraahdo waa noo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu